beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee daga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magaalada London ku yeesheen kulan balaaran kulankan oo ay ku taageerayeen kulan kal horeeta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo dawladda federaalka ee Soomaaliya lagala noqday kalsoonida xafladii maanta waxay ku saabsan tahay inaan taageerno go'aanadii ka soo baxay odayaal dhaqameedka shirki ay qabteen inaan ayidno waxaan maanta halkan iskugu nimid arin ah ayidaad oo aan ku ayideyno shirkan baaqi ay soo saareen odayaashii dhaqanka ee Muqdisho ee beesha in aan la qabno go'aankii ay dawladda kala noqdeen kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ee la dhageysanayso waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan sababaha keenay dawladda Xasan Sheekh inaan kalsoonida ka noqono waxa kamid ah in xuquuqdii aan ku lahayn dawladdaas Soomaaliyeed aan ka weynay muddo 2 sano ah waxa kamid ah dhulkayna iyo dadkayna in bartilmaameed laga dhigo oo shabad lagu dhajiyay oo la yiri wiilasha dhalinyarada shabaab ayay la shaqeeyaan annagu al-shabaab wiilala inta guryaha lagala baxo inta xabsida la geeyaan la gataa asa maalinta waqtiga la soo deeyay ayagoo lacag lagu soo deeyay namana qabato beelo Soomaaliyeed oo dagaalamay oo xamar ku dagaalamay oo wali wixii dhex maray aan ka heshiinin in hub la iskugu dhiibo daraas dawladeed loo galso hal qabiil ciidan gaas ah ama guuta oo hal qabiil ka kooban macal taliyahooda in dhulkeena la dul dajiyo yeelin mayno waana diidnay sababaan kalsoonida kaagala naqnay waxa waaye markaan fiirino dawladda awood yarideeda eexdeeda wax qabad la'aanteeda horumar la'aanteeda corruption-keeda yani waxyaabaha ay ku shaqeynayso ama 3 u cuntami waayay waxaan waxtar lahayn inay taageeraan markii uu soo gabagaboobay kulankan ayaa waxa ay ka soo saareen baaq kaas oo ay u jeediyeen saxaafadda Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay waxaana uu ahaa sidan kulankii ka dhacay maanta magaalada London UK oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Karlahawiye waxay ka soo saareen dood dheer iyo falaqeyn kadib waxay soo saareen qodobadan soo socota beesha UK waxay si buuxda u taageertay go'aankii beesha Karanle mursado Karanle ay ka soo saareen magaalada Muqdisho 22 Febraayo iyo 1 Maarso sanadkan 2014 magaalada Muqdisho kaas oo ay kalsoonidii dawladnimo ama hogaaminimo ay kala noqdeen madaxweynaha dalka hogaamiya waqtigan xaadirka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo u cuskaday taageeradoodaas u cuskaday kadib markii ay arkeen inuu lumiyay himiladii iyo rajadii dawladnimo ee ummadda Soomaaliyeed ay kala heeday dawladda federaalka ee Soomaaliya markay arkeen inuu ku tuntay nidaamkii awood qaybsiga dalka ee lagu heshiiyay ku saleysan habbeeleedka kaas oo uu ugu xadgudbay kuna takrifalay beesha mursada Karanle oo ay ku laheeday nidaamkaasi awood qaybsiga isagoo oo madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud adeegsanaya hay'adaha amniga qaranka ee dalka ka jira inuu ku takrifalay awoodiisa siyaasadeed iyo hogaaminimo una ku shaabadeeyay ama uu ku calaamadeeyay beel dhan oo Soomaaliyeed inay tahay xaq jir ayna yihiin la shaqeeyaan shabaab taasoo beeshu aragto xadgudub xuquuqdooda bini'aadanimo lagu xadgudbaayo iyo mansabkooda Soomaalinimo ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya haddaba beeshu waxay ku baaqaysaa ayna u gudbinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka meel kasta oo ay joogaan iyo ciidamada AMISOMba inay beeshu si buuxda kalsoonidii kala laabatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaysan wax wada shaqeyn ah la yeelanin hadda wix ka dambeeya